بسم الله الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ودكتور MB iyo mar kale barnaamijkii kobca fikirkaaga dunida waxa ku soo biiray oo ku soo kordhay waayihii dambe dhibaato ama fidno runtii kamid ah magarasa min akbar alfitna kamida dhibaatadaas ama fitnadaas oo ah waa faafida ay faafayso wax la yiraahdo maangaabnimada ayadoo dadka maangaabka ay bulshadii saameyn badan ay ku leeyihiin maanta waxaad arkaysaa bulshadeeni oo dhan oo ku wada mashquulsan oo ka sheekeynaya ku wada xiran dhammaantood dad wada maangaabo magaranaysa ka wada sheekeynaya ku mashquulsan waqtigeedu ku luminaya xilligii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ayaa wuxuu ummadda uga digay aakhir zamanka waxa iman doona wax la yiraahdo fitnatu masiix dajaal ayuu uga digay ayaa wuxuu imanayaa masiixu dajaal ummadiiba wuxuu ka dhaadhicinayaa u sheegayaa inuu asaga ilaahay yahay dabeetana markaasuu fitnaynayaayo aakhiradoodii iyo dunidiiba uga ciyaarayaa sidoo kale marka maanta fitnada problemka ama dhibaatada taala waxa weeyaan waa dad waxaa wada qabsaday dunida la yiraahdo wada maangaab ah oo ay saameyn badan bay ummadii ku leeyihiin magarasa bulshadii arrinkaasi waxaa si faahfaahsan si cilmiyeysan oo aad u xoog badan uga sheekeynaya ninka la yiraahdo filosoofkii kanadiyaanka ee la yiraahdo Alan Dono kitaab wuxuu leeyahay la yiraahdo kitaabka nidaamu tafaaha ayaa la yiraahdaa nidaamu tafaaha macnaheedu waxa weeyaan waa wax xaqiira oo wax macno badan aan ku fadhino qiimo lahayn weeyaan dad nooca oo kaleeta ah oo aanan waxba ogeyn maangaab ah sufaha ah taafi ah ayaa maanta dunida oo dhan la wada wareegay waxay la wareegeen aqoonti waxay la wareegeen cilmigi waxay la wareegeen iclaamkii iyo warbaahintii bay la wareegeen waxay la wareegeen dhaqaalihii bay la wareegeen waxay la wareegeen suugaantii iyo fankii bay la wareegeen noocyo kala duwan oo dunida maanta kamid ah ay la wareegeen maanta waxaa arkaysaa siyaasiyiin oo aan dadka idinka sheekeynaya maanta kamid ah magarasa dabeeto siyaasiyiinta waxay saameyn ku leeyihiin wadanka dabeeto waxay gaarayaan go'aano waxay gaarayaan 200 oo sanadood ka badan saameyn ku yeelan 200 oo sanadood oo soo socota saameyn ku yeelan doonta wadanka ay go'aan ka gaarayaan magarasan markaas waxaad soo xusuusanaysaa gabaygii waxa la yiraahdo Cabduqaadir Xirsi Yamyam Allah yarxamo uu ka qaaday shirkii magaransa caarta 1991 kii meelaha mar ahayd markaas wuxuu leeyahay mooga yaali war mooga wax ma ogamayaa wali mooga yaali war mooga wax ma ogamayaa wali laxan soo markiciyo dareemadoodu maqana laxan soo markiciyo dareemadoodu maqana maqal iyo arag iyo maskaxii u talin jiray meerisada dhacdada iyo unugyadii miyaa maqan ma seexdeen ma tooseen mise maalmihii tagay wax abuuran ma ahayn isagoo gabayga sii wada ayuu wuxuu leeyahay mar haddii mataaneenta qarankii mar hadduu magacii naga lumay mataaneenta qarankii mar hadduu magacii naga lumay maxay nolosha inoo tahay kulley moodku waa gare nafta ma isku aasnaa maanta Allah yarxamo wuu dhintay iminka laakiin maanta haddii loo sheegi lahaa kuwa maanta jooga ee gacanta u taaga kuwa maanta jooga oo gacanta u taaga waxay u taagayaan aan la garanaynin oo mararka qaar laga yaabo inay magarasada ummadii masiirka oo dhan inay shilimaad dar inay siisteen luqmatu aysh inay siisteen gabigoodaba maanta haddii loo sheegi lahaa gabay kale ay u tirin lahaa markaas marka waxa soo xusuusanaysaa gabaygii uu qaaday sayid maxamed cabdilla xasan uu qaaday markii uu dilay ninkii generaalka ayo ciidanka hogaaminaya ingiriiska Kofi la yiraahdo wuxuu leeyahay Kofi loo adaa jiiti aan dunida joogeen adaa jidkii lagu wacajaana malageeyo nimankii aakhiro u jahad warbay jirin insha Allah nimankii anaga naga dhintay wanaag iyo warbay doonayaan inay ogaadaan xaaladda meesha ku dhamaatay marka Cabduqaadir Xirsi Yamyam maanta haduu ogaan lahaa kuwa maanta inoo joogana wuxuu tirin lahaa gabay kale ayuu tirin lahaa su'aal baan isweydiinaynaa oo ah maanta maxaan keenay magarasada inay sidaa u faafto ay saameyn badan ku yeeshaan bulshada dadka la yiraahdo maangaabnimada
ama dadka tafaahada la yiraahdo ama dadka sufahada oo aan waxba kala ogeyn maanta waxaa jira noocyo kala duwan yani qodobkood waxa weeyaan maanta platformka ama meelaha kala duwan ay heleen ama social media noocyo kala duwan ee fara badan ay heleen maanta dadka tafaahada ah oo aan waxba la socon oo maangaabka ah noocyadooda kala duwan ayaa batay dabeeto markaas waxay heleen dad fara badan oo follower badan ba la socda oo ka sheekeeya oo sidii ay doonayaan magaranaysa ula falgala ay heleen dabeeto markaas waxa dhacaysa shirkadihii waaweynaa ay dhaqaale ku siinayaan ayagana si magaranaysa maxallaha dadka ku xiran awgood magaranaysa yani laakiin su'aashu arinka ugu weyn waxa weeyaan waxa la yiraahdaa waa qaabiliyatu tafaaha annaga ayaa accept gareynay annaga ayaanu aqbalnay annaga ayaa u aragnay inay yihiin dad halii ah dad magaranaysa yani wax garad ah dad annaga waxa ka dhignay waxa waxba ahayn hormuud annaga ka dhignay magaranaysa yani ayaga waliba ku xadgudbaya sharafteeda ku xadgudbaya qiyamkayaga ku xadgudbaya akhlaaqda ku xadgudbaya diinta ku xadgudbaya dhaqankayga ku xadgudbaya ayaa waliba ku caawinay arinka aanu aqbalnay inay saameyn nagu yeeshaan yani doqonnimadooda inay saameyn nagu yeelato iyo maangaabnimadooda aanu aqbalnay yani only keliya waxay doonayaan waxa weeyaan waa inay caan noqdaan xoogaa yaro dhaqaalaha ka sameeyaan intaa awgeed markaasaa waxaad arkaysaa oo aad soo xusuusanaysaa xadiis nabi maxamed sala allahu calayh wasalam uu yidhi ina bayna yadaya saaca maalinta qiyaamaha waxaa iman doona siniina khadaaca yani sanado aad u dhagar badan ayaa iman doona maxaa dhacaya sanadadaas nabi maxamed sal allahu alay wasalam wuxuu leeyahay yusadiqu fiiha alkaadib markaa waxaa la aaminayaa kan beenaalaha ayaa la aaminayaa wayukadibu fiiha yusadiqu fiiha alkaadib wayukadibu fiiha asaadiq wayu'tamanu fiiha alkhaa'in yacni markaa waxaa imanaya xilli kii beenaalaha laga soo qaaday inuu runlow yahay uu haliyi yahay uu nin fiican inuu yahay oo weliba lagu ammaanaya wayu'tamanu fiiha alkhaa'in waxaa la aaminayaa ee wax loo dhiibanayaa oo mas-uul laga dhigayaa kuwii khaa'iniinta ahaa xadiiska wuu soo socdaa wuxuu leeyahay maalintaa waxaa hadlaya wayatakalamu fiiha ruwaybida maalintaa waxaa hadlaya oo afka furanaya oo hadlaya oo bulshada wax u sheegaya kuwa la yiraahdo ruwaybida markaasaa la yaa rasuul allahi sala allah mar ruwaybidadana ka sheekeynayso maxay tahay markaasuu leeyahay waa yani waa qofka taafi ah yatakalamu fi amri alcaam yani wuxuu ka hadlayaa qofkii taafi ah qofkii magarasa dee wax magaradka ah maangaabka ah ayuu wuxuu ka hadlayaa arrimihii magarasa mujtamaca kuwoodii ugu muhiimsanaa bulshada weliba saameyn kule weliba go-aan buu ka gaarayaa mararka qaar weliba waxaa ogsoonahay waxaan maangaabka maanta inay meel walba joogaan ay tvda joogaan ay meel walba ay joogaan ay waxay saameyn ku leeyihiin caruurteeda ayay saameyn ku leeyihiin markaasaa waxaa dhacday wiil yaroo sagaal sano jira oo gobol la yiraahdo maxalla Sofia jooga wuxuu isdilay yani wuxuu sameeyey suicide buu sameeyey wuu isdilay khayl mood buu sameeyey wuu isdilay waa 9 sano jir weeyaan dabeetana waxaa la ogaaday markii dambe inuu yarkan yari uu la socday film Turkiya khulud la yiraahdo inuu la socday dabeetana midka one of the character filmka ku jira ayuu iska dhigi jiray ku dayan jiray kiiba isdilay markaasuu asagana de sidii isku dilay asna saameynta ku yeelna arkaysaa markaasaa waa nin faransiiska ayaa ardayba waxay booqdeen yani macalinkoodii bay booqdeen markaasay waxay arkeen gurigiisii oo aan waxba tv oolin markaasay waxay ku yiraahdeen yani tv ma ku yaalaba markaasuu wuxuu yiri miyaan waalanahay anigu markaan guriga keensanayo wax igala qayb qaadanaya oo saameyn ku yeelanaya sida aan doonaya ciyaartooyda inaan u tarbiyeeyo yani tv-gan yaro guriga yaala yani wuxuu ka qayb qaadanaya ma fahmaysaa oo ugu qabsanaya sida aan doonaya caruurteeda inaan u tarbiyeeyo ninka la yiraahdo filosoofka la yiraahdo Colin Wilson wuxuu leeyahay qofka markii magarasada ujeedadii nolosha ay ka lunto oo waxyaalaha uu doonayo oo noloshiisa uu doonayo uu hirgelin kari waayo
يعني هدفيديس markuu hirgelin kari waayo ayuu wuxuu ku mashquulayaa waxa waxba ahaynoo tafaaha ayuu ku mashquulayaa waxba ogeyn wada maangaabkaas ku mashquulayaa inuu iska daba socdo ayuu ku mashquulayaa ma garasaan okay su'aasha marka asweydiinayna waxay tahay adiga iyo anigaba waxa inoo liidasho ah waxa inoo doqonnimo ah inaanu u ogolaano caqligeena iyo maankeena inay ku ciyaaraan dad wax magarata ah dad sayaqulu sufahahu min annaas ma wallahum an qiblati milati ilahi ku tilmaam sufaha weyan يعني dad bila mabda ah bila akhlaaq ah bila diin ah in maanta caqligeega iyo maankayaga iyo wacyigeega inay ku ciyaaraan aniga iyo adiga maanta waxay noo tahay liidasho ay noo tahay magarasa yani ayagoo kaliya doonaya inay caan ugu noqdaan inay magarasa shilimaad yar iyo dhaqaale yar inay helaan ninka la yiraahdo Herbert Schiller wuxuu leeyahay kitaab wuxuu leeyahay cajiib ayuu leeyahay oo waxa la yiraahdo the mind managers ayaa la yiraahdaa ama almutalaacibuna bilcuquul yani in lagu ciyaaro caqligeena iyo wacyigeena iyo aragtideena maanta in lagu ciyaaro waliba ay ku ciyaaraan dadka ugu mangaabsana ugu liitay inay ku ciyaaraan markaasa waxay sameynaysaa arrinkan waxay sameynaysaa dayaacu umma in ummadan waqtigoodii iyo nolosheedii iyo waxyaalihii u muhiimsanaa oo dhan in lagu ciyaaro magaransa ayaa imanaysa magaransa yani in lagu ciyaaro markaasa waxaad soo xusuusanaysaa buugga la yiraahdo 7 habits buugga la yiraahdo 7 dhaqan ay dadka magaransa successful noloshooda yani highly effective people ay leeyihiin magaransa dadka nolosha saameynta ku leh wax wanaagsan sameeyay dhaqankooda yani one of them dhaqanada kuwaad waxa kamid ah waa productive weeyaan waa dad wax soo saar leh waa dad magaransa wax sameynaya oo wax keenaya weeyaan magarasan markaasa waxa soo xasuusanaysaa Nabi Maxamed asagoo ugu dhiirigelinaya inaanu noqono dad wax soo saar leh oo wax qiimo leh soo saara magarasa ay wuxuu leeyahay iqtanim 5 qabla 5 wardadow ka faa'iideysta ayuu leeyahay 5 intayna 5 kale idin iman ka faa'iideysta marka aad waqtiga haysato ka faa'iideyso berito lena mashquulaysa lama garanayo caafimaadka intaas xooga leedahayna ka faa'iideyso berito le wax laga yaabaa inay xoog lahayn oo da noqoto caafimaad darana ay ku timaado inta xoog leedahay Nabi Maxamed wuxuu nagu dhiirigelinayaa inaan noqono yani dad proactive wax soo saara magarasa waxaad arkaysaa oo kaleeto yani mustahlik yani Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo diinta waxay nagu dhiirigelin dad inaan noqono mustahlikiin wax soo saara dad wax soo saar leh inaan noqono ee inaanu noqon dad consumer ah wax xun isticmaala wax xun iska daawada oo dadka iska daba socda inaan noqon dabeetana waxaad maqlaysaa yani waxaad arkaysaa xadiiskii oo Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam uu dhahay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam yushikul waxa iman doonta xilli ummaduhu isku yeeran doonaan sida marka cuntada la cunayo kala tala isugu yeedho magaransa isugu yeeran doonaan ay iman doona qala qaa'il wa man qillatu nahnu ya rasuul allah maalintaas ma waxaanu wax yar baanu nahay la weydii markaasuu Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri la qala bal antum yawma idin kathiir maalinta aad ba u badantiin buu yiri laakiin problemkiina wuxuu yahay wax quality ah oo haysataan ma jirto يعني wax wada material baatiin magarasa ayuu leeyahay Nabi wax material walakinakum ghutha maalinta waxa diin sida xun badan dadka markay la socoto kale saaso kale la idin qaadanaya ilaahayna wuxuu idin ka siibaya magarasa qalbigiina wuxuu ka siibaya cabsidii dadka idin ka cabsan jireen magarasa yani dadka cadowga idin ka cabsan jira meesha ay laga saaraya markaas cid idin ka cabsanaysa ma jirto idinkii baa la idin soo doonanayo la isku kinyeeranaya wixii doon la iska sameeysanaya dhibaatada kaliya waxa weeye xubbu dunya kala waa dunidii aanu jeclaanay oo amaan gaab waliba iyo doqon waliba wuxuu dhahay iska daba socono iska daba raacno weeyaan magarasaan yani meesha waxa laga hadlayaa quality ayaa laga hadlayaa xilligii Khalid oo dagaalada ku jira ayaa waxa dhacday Umar
ay wuxuu ka dalbaday inuu ciidan la soo gaaro ciidan u soo diro markaasaa waxaa loo diray saxaabi la yiraahdo qacqaca ayaa loo diray hal qof kaliya baa loo diray yani halkaa wuxuu u dhigmaa 100 iyo 1000 buu u dhigmaa ma garanaysaa yani quality sidaa daraadeed يعني xikmad baa waxay leedahay ay walba ee qayliya haddii dhagax afka loo geliyo dhagaxa oo dhan qaali buu noqonayaa yani waxa laga wadaa haddii aanu ka soo qaadno waxaan waxba ahayn haddaan wax ka soo qaadno macna yeelanayaan magarasa yani waxaad arkaysaa maanta midba inta isu soo taago ayuu wuxuu leeyahay bac juk dhac bac wax alaali wuxuu ku sheekeynaya lama garanayo markaasaa waxaad arkaysaa iyadoo la daba yaacayo midba maanta wuxuu asaga soo taagaya masraxa ay soo taagaya markaasuu wuxuu rabaa inuu haysto markaasuu wuxuu ku heesayaa lugtaan ku qabsaday adinkaan ku qabsaday xaggan baan kugu dhegay wax macnaba aanan lahayn magarasa markaasaa la daba ordaya haysti magarasa eedna qaar baa maanta waxaa arkaysaa isdaba ordaya oo is soo taagaya oo leh aniga ma arkaysaan timahayga $5,000 baan ku sameeyey waan adeer anaga timahaaga iyo waxaad ku samaysay maxaad nagala soo doonaysaa yani maxaad nagala soo doonaysaa yani timahaaga iyo waxaad ku samaysay maxaad nagala soo doonaysaa magarasa doqonnimadu maanta aad bay u faaftay nooc waliba ee ka mid a magarasa aad bay bulshadu ugu faaftay laakiin waa doqonnimo anaga inoo gaara inay dad maangaaba inay caqligeena ku ciyaaraan jarmalka ayaa waxaa ka dhacday ninbaa wuxuu social mediasi wuxuu ku soo qoray waxaan doonayaa maanta qof aan dubto oo aan shiisho oo aan cuno social mediasi kusoo qoray dabeeto markaasaa loo imanayaa ninbaa u yimid magarasa de kan waxa sameynaya waa dhakhtar kan kalena engineer weeyaan gurigu ugu yimid magarasa de miyaad ii timid okay ka waran hadda sidee u aragta haddaa gacanta kaa jaro oo aan gacantii magarasa de aanu dubano aniga adig isla cunno dabeetana inta dhiman ayar aan kuu cuno sidii buu sameeyey gacantii bay wada cunayn kadibna intii kaleeto ayuu karsaday talaajada ayuu gashay ayarba u cunay maalmo dambe ayaa ninkii la raadiyey waxaa la arkay ninkii inuu magarasa de la cunay ma hada alaxmaq yani axmaqnimo intee leeg baa arkaysa yani waa maangaabnimo intee leeg weyan yani arrinka markaasaa midba waxaa arkaysaa wuxuu kusoo qoray meelaha ganacsiga laga samaystay website wuxuu kusoo qoray yaa iga iibsanaya booskayga jannada yaa iga iibsanaya ayuu kusoo qoray markaasaa waxaa arkaysaa dadku ka iibsanaya lacag u diraya marka maanta waxaad arkaysaa nooc waxaad arkaysaa waxaana maskaxda kusoo dhacaynin oo maangaabnimo intaa leego dadku sameynayaan dadkiiba waxaa arkaysaa tviyada maanta waqtigooda ku khasaarinaya Netflix iyo magarasa de waxaana dhammaanayn ku khasaarinaya dadkii waxaa arkaysaa magarasa dee rag waaweyn oo game ciyaaraya rag waaweyn oo game ciyaaraya fahamsa waqti ku luminaya rag waaweyn waxaa arkaysaa football iyo ciyaaro aanan weligood dhammaanayn ka sheekeynaya oo leh hebel baabadis waar adigu hebel iyo hebel iska daayay shaqadii lagu talagalay meeday adigu magarasa yani ugu dambeyn maxaa inoo xal ah sidee baan dadka wada maangaabka uga ilaashan karnaa caqligeena iyo maskaxdeena iyo caruurteena iyo bulshadeena inay ku ciyaaraan sidee baa uga hortegi karana magarasa yani kitaab waxaa jira la yiraahdo sunaacatu alcadama in la sameeyo dad waaweyn oo magarasa in la sameeyo alcadama in la sameeyo yani لعبد الله بن عتاق على ذلك صاري وحوليه كو إلى لبي طبعا قانون كو إلى تن قانون أي شيء جاء أو طبعا تصيدا مجرسة يعني نقف أو نقول له مجرسة محلها واحتر له سي لوسمة صناعة العظمة لوسمة مجرسة يعني لكن وجود بين أذيك يعني جا ويران waxaanu sameyn karnaa inaanu ana ka sheekeynin yani qofkan maangaabka ah inaanan flow garaynin inaanan la soconin inuu wuxuu dhahay magarasa aanan waxba ka soo qaadin inaanan meel u joogo iyo aanan ka baxno aanan dadka uga sheekeynin weliba ayadu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay war haddaad ilaahay rasuulkiisa garanaysaan falyaqul khayran aw liyasmut waa iska aamu ama dadka wax wanaagsan u sheeg waxaa jirta inta badan waxaa la yiraahdaa don't make stupid people famous dadka stupid people ah caan ha ka dhigeen oo adiga ha caawin
يعني dadka stupidka oo magarasa waxa ogeyn oo maangaabka doqonka ah adiga ha caawina waxa u sheegin nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay kafa bil mar'i qof waxa dambi ugu filan inuu ka sheekeeyo waxa uu maqlay gabay baa wuxuu leeyahay ha noqon dhagarqaba kalkaal doohane lagu meelmariyo daan yaa lagugu xaman ugu dambeyn aniga iyo adiga maanta waxaan samayn karnaa inaanu bulshadeena ka celino dadka maangaabka ee ku ciyaaraya bulshadeena maanta ku ciyaaraya dhaqankeena iyo diinteennii ku ciyaaraya yani cilmigii ku ciyaaraya dhan waliba ee nolosha kamid ku ciyaaraya inaan adiga iyo aniga intaba aan falow garayn oo aanu ka sheekeynin waa wax ugu yar maanta inta aanu samayn karno waa mar kale iyo barnaamijka kobci fikirkaaga waa Dr. MB idin leh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.